daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan waxaan ku suganahay hoteelka Crown ee magaalada Hargeysa hoteelkaas waxaa kula kulmay nin inta badan dadka YouTube-ku ay kulay garan doonaan dab casar adiga magacaaga saddexan iyo hawlahaas faahfaahin doona marka hore magacaaga saddexan noo sheeg Abdurrahman Abdullahi Haji Naynas dab casar Badriyo ويا بعض أمهات بدري يومين سفيان وكاوس لقرنا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة سفيان يقول إذن بدر إذن كو مركب بدر وما شاء الله ما لبضن بدر وتجدون هالكاس مركب هرد تبع سر محية هي مقعس ولا لو حاول ودلال وقرح و عربو مثلا قد هو نين عصبوا وجه دينا يكيد معيو طبعا ريبر برون حاجه دبع عصر دي موسى يا قرنيا دي لا يكود معي موسى بيحي دي ريبر برا قرنيا دي لا يكود معي marka dab casar weey dii la yكود dab casar hadii la yكود naynastiisi in casb aha oo cad oo dii la yكود bajilacsan oo bayaxaw hadii la yكود maayo taas loogu magac daray way faahfaahinta kale waa u gali doonaa maanta waxa timid magaalada Hargeysa nooga waran imaatikaaga xaqiiqdii lama soo koobi karo shucuurtayda farxadda reereynta wanaaga aan dareemayo ehelnimada sokeeynimada Soomaalinimada wax aadan filanaynin wixii ay soo imaalida koonfurtu gaar ahaan ay bumbuuno ay lahaayeen free dab casar baan dhahaynaa hadii la yكود ma ama god dheer baa lagu ridaya ama maxaa la jilca maxaa la jilcu wala mandheera maxaa la halka jeel dheer baa lagu ridaya war waxaas aniga yaa baro isla laba guuta taagan airport-ka oo ku qaban doonta mise waxaa la ii dhigay fiyorayaal iyo ubax iyo kaarbad sidii boqorada la isoo dhaw sheekh yani xaqiiqdi yani abitaan cunitaan hoteelada la deji kala iska arag marka barwaaq been ba qurbaat Allah been dadka qaar waxay lahaayeen munaasabada madaxweynaha xil wareejinta ayuu u socday bal hata imaatikaagu waxa uu la xiriiray noo sheeg madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaa jecelaydna inay yimaadaan nacam anigu waan goostay inaan imaado soona gaaro kana qayb qaato hadii la yكود maayo ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa inuu xilka la garab galo ilaahayna u sakhiro madax iyo wasiiro ilaahay ka baqaya oo geesiyaala oo daacada oo la garab gala hawshatan hadii la yكود bal ilaahay subhanahu wa ta'ala an ka bariya طبعا يعني de musana waana bumbuuniyay hadii la yكود maayo intii aan la dooran ka hor wali deed hadda iga taagantahay muuse ii geeyay hadii la yكود maayo waa la ii joogo waa lagu geynayaa bal hadii la yكود maayo di farmaajo ii geeyay ahayd waa lagu geeyaa Soomaaliya waa lagu geynayaa bal waan rajaynaa in la kulmo marka Allah la garab galo madaxweynaha waana u nimid waana arkaynaa insha Allah ilaahayna qaranka iyo dalka iyo dadkaba Allah barwaaqayo intaan ogahay YouTube-yada iyo arrimahaas caan baad ka tahay sibada qola waxba u dhigtaa qola waxay yiraahdaan sheekh qola kale si kale ku dhaliiraan sidii saytuunkii halkeedii bal hay hawlaha ka war xaqiiqdii ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu horta qowlkeena qowl sidiida uu ka dhigo khaladaad badan waa naga dhacaan oo wax anagu ama kaftan aan ka dhigano ama yanaan ka dhigan khaladaad badan waa naga dhacaan laakiin waxaa jira waxyaalo badan oo xaqiiqo oo dadku ay u baahan yihiin oo xagga ijtimaaciga ah oo dhalinyaradu ay gaar ahaan dhalinyaradu ay xiiseeyaan oo diintuna ay aad xoogga u saartay kana sheekaysay يعني حقيقي يعني عيبنا أنا هين لكن حوجا وحلا يقول لي أنا الفاض أدق أما أن أسترنين أو أن أذكسده أو لقى في عيني هاي وأنا قاطع تلوين كاس مركب ولا إلهي وحنكبر إن ذلك يعني إنه يلوها كشيو إن بل يردنا وحلنا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج بل يرى يقفكي أو ذا إنه جرسه وجرسه مركب جوركو يعني شرفتيسا كرامتيسا زينة يعترض على قاضو يعني أيدسكيو إيست أفريقيا هذا كفافية أو أد كفافية اللي لوجنا بايع يقارن كسومال لاندي إني دليل وعي جرين حق له أي أسميان أو هذي لا يكود ما يو مركب أنا سلسيتون ما كشكل لكن دليل ذي هالكاس وعي جرين جوركو إنه حلال ياي في عين هاي يعني opposite كواح أنا هذي لا يكود ما سيد هذي لا يكود ما عذر هذا خطرت أو STD sexual transmitted disease كله يقانو سيد HIV herpes gonorrhea كلاميديا وحاسو إذا هذي لا يكود ما يو أفر بدنا هذي لا يكود ما مركب walaalkay yani aad baad umahadsan tahay yani su-aashaas qiimaha badan hadii la gudmay in arrimaha aad ka hadasho dad badan waxay arkaan inaanay sax ahayn dad waxaana la yiraahaa sheekhna waad ahayn diitu in qaab caynkaas looga hadlo wax daliil ma yahay صحيح يعني سؤال سعد ويدي سوالله
waaba aniga hadda kuu sheegayba yacni diintu sida ay uga sheekaysay fiildigan ama maadadatan haddii ilahay ku idmaayo guurkii iyo xuquuqdiisii iyo raaxadii ama haddii ilahay ku idmaayo sida loo raaxaysanayo iyo usluubteedii iyo yacni ninka iyo haweenaydu xaqa ay isku leeyihiin iyo haddii ilahay ku idmaayo yacni gabdhaha xurulcaynta iyo jirkooda ilaahay tilmaamaya indhahooda jirkooda xubnahooda yacni xataa gabdhaha aan lasoo taat yani hadda ma doonin inaynu ku dheerano hawshaas laakiin yacni qur'aanku ma helaysid buug romancy ama jacayl ama ka sheekaynaya oo hawlaha yani qur'aanka suu uga sheekeeyey ama u faahfaahiyey ma jirto haddii ilahay ku idmaayo kutubta fiqiga haddaad fiirsa haddii ilahay ku idmaayo yacni waxyaalaha ka dhalanaya ninka iyo haweenaydu marka ay wada kulmaan qubayska ka dhalanaya waxyaala badan baa ka dhalanaya oo yani marka yani culummadu sibay u tilmaami jireen yani yani af carabi ku tacbiirin jireen xashafa iyo wax lamid haddii ilahay ku idmaayo marka waa laga fiican yahay de waaniga ku iri de hawlahaasna iminka waaba ka gaabsaday oo aniga laftayga hadda awoowo inaan noqdaan ku dhowahay laakiin in allaha laa yastaxyi min alxaq waxaa loo baahan yahay dhalinyarada in la wacyigeliyo oo laakiin wixii xunna laga wacyigeliyo hadda maalan baashaal baa lagu leeyahay baashaalki yani zinadii waxay noqotay piece of cake maalan yani gabar iyo wiil baa iskaxaysanaya hotel bay isla tegayaan ama meel bay isla tegayaan ama gacanta isqabsanayaan ama aroos baadhi baa jira ama baashaal haddii ilahay baa lagu leeyahay marka waana wax zina ah ilahina wuxuu leeyahay walaa taqrabu الزنا marka xaqiiqdii dhalinyaradu waxyaalaha factska oo wadaado badan ay ka sheekeen ama ay ka gaabsadeen inaan soo bandhigay laakiin de inaan ku talax tago ma ahayn oo de hadii la guudba hadda kadib ma joojin sawaad wadas yani waxyaalo badan oo aan ka gaabsaday way jirayaan sida maalan ba criticizing condemning iyo hadii la guudmaayo qof cambaarayntan iska socota iyo cayda iyo qabiil in laga hadlo iyo shakhsi in loo gafa iyo waxyaalahaas waxyaala yani adduun iyo aakhiraba aan sharaf ayna dilaa ku waxaana waxyaala duubmaya oo youtube galaya oo ilaa qiyaami saaca kugu markhaati kacaya marka waxa way qofku muxuu ka faa'iideeyaa wax yaroo kuu qosla waxba kuu tari mayso adigoo walaalaha ama qof ama qoys ama qaran wax ku xadgudbaa dilaa ku idmaan marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala wax productive ah inaan soo bandhigi doono oo ummadda anfacaya si cilmiyanna ah waxaan ka baarandegay oo aan u sameeyey lesson planning awal anigoo xiiqayo ordahaya ayaan soo geli jiray waana sii dayn jiray sax editing baa jira Soomaa maxaad samaystaan idinku maxaad samayn jirteen yani ya hadda youtube ka ma sii daystaan mise waad anigu daarigo waxayga isku warsaasi ku geli jiray marka taas waxay keentay waxyaalo badan oo bila break ina noqday hadii la gudma laakiin iminka bacdi waxaan rajaynayaa insha Allah taala wax cilmiyan ah oo qurux badan oo sharaf leh oo udgoon oo oo aad u fiican insha Allah taala hadiiba ay dhacdo inaan barnaamijyo soo gudbiyo barnaamijyo xagga nabadgelyada xagga guurka xagga walaalnimada xagga midnimada xagga iscafinta dib u heshiisiinta إلا يعني حتى مثلا يعني حالي قرحة بدنا يوم مدن مسبح إلهي قرب قال وكشكي وحكمدا كو حيالا ugu horeeyo musuqmaasuq in la diray iyo gogol inuu dhagaya nabadeed oo dhammaan ummadii Soomaaliland isu keenayo qabiiladii kala duwanaa dadkii wax kala tirsanayay yani power sharing xukunka la qaybsado la wada leeyahay si fiican arrin la wada leeyahay oo dadkii ay midoobaan u diirka xuquuqdana ay baxdo mahadsan sheekh arrimaha waan u gali doonaa laftiga berberaabi waan hayo burcaawi waan haye dee qaranka yaa wax ka dhisto hadii la si kooban qoyskaaga baa u timid baa laygu yiri arrinkaas ma jira ها يعني عروتي ذلك اللي دكنتهاي أدي لا يكون ما شاء الله وقرن كودي ودل كودي وأبح سومالند أي كفانتو قبل يدور الجامعات بينك ما شاء الله إنه كون السيد كل هالكان نصور حوبرتا مركب ودل كودي أنا وأنا أمي دتك ما شاء الله أي كلمة ما أنا دتك ودم دتك أو ديجي أو دعانك أو إهلك أو ما شاء الله يعني ما شاء الله الله يشرفه لما أنت لقينا تشوكتال إن شاء الله وحى يقرشيسن لبا بلاد بان سو غستay فبراير شنتيدا inaan Mareykan ku noqdo afarteeda laakiin Hargeysa inaan ka baxo kowda baan rajaynaya inaan ka baxo baa ii qoran February Ukraine baan ku noqonaya markaas insha Allah aan afarta ka baxaya insha Allah hadii aan noolnahay si kooban dad waxay yiraahdaan reerihii sheekh Madaynino saliidii waa ka dhinac ka wada iyo arrimahaas oo dhan haye maanta ay saamaxna miya taaganta walaal waxa weeye bani aadam oo dhow way gafayaan
qofka gafana waxaa u fiican sida nabigu yidhi kuwa ka soo noqda khaladkooda bug waxaa jira hadda aan watay oo ah how to influence people how to influence and influence people waa saaxiiba kasbo si saaxiibada loo kasbado waxaa ka mid a qodobadiisa do not criticize do not condemn ha cambaarayn ha yacni wax ka sheegin waxa faagfaagin waxaa ka mid a admit your mistakes khalad markaad gasho ha isa soo liqdaarine war waan gafayde haddii la ku idmaayo dee aniguna dee waxaan leeyahay dhammaan soomaali weyn gaar ahaan qaranka somaliland waar de wixii khalad iga dhacay yaa miskiinka alle meel dheer ma jire waar de raalli ahaada dadka si ku xantaa waxay dhahaan hadda sheekhu wuxuu ka dhiganayuun caanimo iyo arrimahaas youtube-ke bal hadda arrintaa ka war xaqiiqdii iguma jirin iscaan bixi waxyaalaha soo caan bixi waxaa ka mid ah youtube anigu dad kama ceshado marka dadku ayaga kala qaata way xadar ma dhahayo laakiin ayaga qaata marka ayagu meelihii kala badnaa ay ku tuurayeen baa keentay laakiin caannimada hadday noqoto rasuulkeenu alayhi salatu wasalam wuxuu yidhi ina allaha yuxib alcabd attaqiy alkhafiy ilaahay wuxuu jecel yahay addoonka allah ka cabsada oo qarsoon oon caanka ahayn laakiin haddii aad ilaahay agtiisa caan ka tahay dadkuna aysan ku aqoon kee fiican inaad ilaahay agtiisa caan ka tahay oo dadku aysan ku aqoon iyo in dadka agtooda aad caan ka tahay oo ilaahay uusan ku aqoon kee fiican wax ka rabbi baa wanaagsan marka anigu waxaan doortay ilaahay agtiisa inaan caan ka noqdo dadkana haddii ay jeclaadaan oo dee caan aan noqdane dee waa wax ilaahay kusiiya ilaahay hadduu inta la macaldoon qole dadku way jecel yihiin maasha allah de qof hadduu ilaahay jeclaado jibriil buu u dhawaaqaa jibriilna mala ulaclaa buu u dhawaaqaa fa yuudacu lahu alqabuul fi lard jacaylkii baa dhulka loo gelinaya marka caannimadaas iyo jacaylkaas waxaan ku heli karnaa daacada ilaahay sharafta wanaagga alla kacabsiga ayaynu ku heli karnaa meesha aan ka raadinayno xumaan iyo cay iyo munaafaqad iyo isku dir iyo xan iyo qoys ama qaran ama dad loo gafo haddii ilahay ku idmaayo waxaa laga heli karaa dhinaci fiicnaa baa laga heli karaa walaalle ugu dambayntii aad iyo aad ayaad marka hore u mahadsan tahay telefishinka eryal iyo kelmadda u dambaysaad odhanaysa waxaan leeyahay low anfaqta ma fi lardi jamiican ma allafta bayna quluubihim ilaahay baa yidhi haddaad haddaad bixisid waxa adduunka yaalla oo dhan ma midayn kartid dahab iyo luul iyo wax kasta gold silver batrool waxa walba si jagooyin xataa qaybi haddii ilaahay ku idmaayo يعني هذا قارب كره جري مسبحين ومارتي تجوين وقيبيو ويسكو جعليسيو تطرح لما تقسين كرو لكن واحد تقسين كرا محي طبيعته وناقصن يرهم يعدالد يا دد كلا تقسين كرا مركو حو إلهي وحن كبريا شنت الصومالية الله قلوبته ذي سكينه وعدد إيلا وضد الشيء لقط دين قبله رسول وحول باك الدحية waxay wadaagaan cid wadaagta male ilaahay waxaan ka baryaynaa marka inuu qulubtooda isu keeno Soomaali weyn Allah mideeyo cadawgoodana Allah ka qabto fiican laakiin marka muuqaalka aad ku jirtaan gacan baatay imika wada dhar leegtay ka warranta sheekada aad iyo aad baad u baahan tahay mara kaba dhaadheer baa qabaa u maraynaya xogaa bariyaha rag iyo dumar ba waxbaa la ismariyaa baa la yiriyo sunniyo beena iyo haddii ilaahay ku idmay kaba dhaadheer iyo wax wada beena dadkii qalab wada beena dadkii ku iyo waxba markaad ها ما سلي زيتون كاس أمبارس كم برصة وكله أيادي لو وتاد أدي له ها وادو قبلت تسيتون عادي نادر قالي عادي نادر قالي مركز تي في قال كان عاد بو ما سيهاي يعني وحيالها شرفت قرن كوهاي سد عادي بدو ما سنتهاي من لماذا نبتقليه ذا هرمركا نقالها تعليمته توجيهinta dhalinyarada gaar ahaan oo 170 dhalinyaro ah aad iyo aad baad u maasantahay TV-gaagan waxaan rajaynaynaa inuu caalamka dhan gaari doono insha Allah shukran aad iyo aad baa maasantahay